بسم الله الرحمن الرحيم وصباح نمت ثلاثة لبي لباتنك بشا جولاي سنة لبكن لباتن يشن أو كوبعجن تضبي لباتنك بشا محرم سنة كن أفر بقول فرتن يتضبا تاريخ الهجرية كسو دوادا مركله يبرامجكي xulashada wararka qodobada saaka barnaamijkan aan idinku wahaynana waxa kamida askarta Israa'iil oo bilowday in ay sameeyaan arrin la yaab leh si ay uga soo baxaan furimaha hore ee dagaalka Gaza ayna ugu laabtaan guryahoodii haddaba maxay tahay arrintan la yaab kale ee sida weyn u qabsatay warbaahinta iyo weliba baraha bulshada Israa'iil sheeko cajiib ah ayaan idinkaga haynaa qodobada kale barnaamijkan idinkugu hayno waxaa ka mid ah dagaalyahanada iska caabinta Gaza oo ka warbixiyay hawlgalladii ugu dambeeyay ee qaadeen iyadoo faahfaahin dheeraad ah ay ka soo baxayso hawlgalladii ugu dambeeyay ee xalay dhacay xuutiyiinta oo shaaciyay in ay diyaar u yihiin in ay sii xoojiyaan weerarada ka dhanka Israa'iil ayna jawaab adag ka bixin doonaan weerarada Israa'iil ay ku hayso dalka Yemen madnaba in Afghanistan ay ku sugan yihiin ciidamo shisheeye dowladda Taliban ee dalkaasi ayaa jawaabtan inoo haysa hogaamiyaha military ee Suudaan General Al-Burhan oo wacd ku maray in la ciribtiri doono maleeshiyaadka RSF isla markaasna digniin wuxuu u diray in faragelin lagu sameeyo arrimaha gudaha ee dalka saaka waxaynu ku bilaabaynaa colaadda Suudaan halkaasi oo lagu soo waramayo in dagaaladu ay weli ka sii socdaan gobolada Darfur iyo Kordofan waxaana la sheegayaa in dowladda waddanka Suudaan hadda ay wado qorshe ballaaran oo la xiriira sidii magaalada Khartoum ay ugu soo guuri lahayd halkaasi oo imika uu ku sugan yahay General Abdul Fattah Al-Burhan gudoomiyaha golaha militariga ee maamulaya dalkaasi Suudaan haddaba hadalla adag oo la xiriira dagaalkan imika socda waxa u degsan ciidamada militariga ee Suudaan faragelinta lagu hayo waddankaasi iyo qodobo kale ayuu ka hadlay Abdul Fattah Al-Burhan aynu eegno markaa warbixintaasi oo warbaahintu ay qortay saacadihii ugu dambeeyay madaxa golaha sare ee kumeel gaarka ee dalka Suudaan Abdul Fattah Al-Burhan ayaa sheegay in ciidamada qalabka sida ee Suudaan oo ay garab siinayaan saaxiibadooda ay awood u leeyihiin in ay ka adkaadaan waxa ugu yeeray maleeshiyada dagaalo isagoo ula jeeda ciidamada gurmadka degdeg ah ee RSF ee uu hogaamiyo Maxamed Hamdan Dagalo oo loo yaqaan Hamiyati Al-Burhan ayaa waraysi uu siiyay wargeyska Il Español oo shalay la daabacay waxa uu ku sheegay in diino buuxda uu ka qabo waxa kasta oo faragelin caalami ah oo lagu samaynayo arrimaha gudaha ee dalka isagoo tilmaamay in wadamo iyo dhinacyo shisheeye ay doonayaan inay ka aargutaan Suudaan si ay u yaqaan madaxbannaanideeda sida hadalka uu yiri Al-Burhan wuxuu cadeeyay in xiriirka dibadda ee dalkiisa uu ku xirnaan doono mowqifka wadamada dibaddu ay ka taagan yihiin dagaalka waxaana uu ku nuuxnuuxsaday in mudnaanta dowladda Suudaan ee gobolka Darfur ay tahay in la gaaro nabad iyo xasilooni la soo afjaro kacdoonka laguna soo celiyo dadkii barakacay guryahoodii gudoomiyaha golaha sare ahna taliyaha ciidanka Suudaan General Al-Burhan ayaa carabka ku adkeeyay in xal waara loo heli karo dhibaatada dalka kaliya iyadoo loo marayo wadahadal qaran waxaana uu ka digay in lagu tiirsanaado xilal dibadeed oo aan waarayn Al-Burhan oo maalinimadii Axadii ku tagay magaalada Khartoum diyaarad rayid ah halkaasi oo uu kormeeray xarunta dhexe ee ciidamada ayaa waxa muuqaalo la soo dhigay baraha bulshada ka muuqanayay isagoo safarkiisa kadib booqanaya goobaha militariga gaar ahaan xarumaha ciidamada booqashadiisan waxay ahayd tii ugu horeysay ee uu ku yimaado magaalada Khartoum isagoo adeegsanaya diyaarad rayid ah markii ugu horeysay tan iyo markii dagaalku u qarxay 2023 bishii Abriil waxaa xusid mudan in bishii March garoonka diyuuradaha ee Khartoum uu ka soo degay isagoo la socda diyaarad kuwa ciidanka kadib markii ciidamada qalabka sida ay la wareegeen magaalada Khartoum ee caasimadda ah dowladda Suudaan ayaa markii dagaalku u qarxay waxay u guurtay magaalada Port Sudan ee ku taala badda cas bilowga dagaalkana waxaana ilaa iyo hadda halkaasi ay ka shaqaynaysaa laakiin imika waxaa jira qorshe la doonayo in dowladdu ay soo guurto magaalada Khartoum inkastoo dagaal ay ka socdaan qaybo kale oo ka mid ah dalka
dagaalada ayaa lagu soo warramayaa in ay sii xoogaysteen maalmihii lasoo dhaafay gaar ahaan dhinaca galbeed ee gobolka Darfur iyo Kordofan waxaana soo baxaya warar kala duwan oo sheegaya in tan iyo bishii Maaj dagaalada dhacaya looga awood roonaaday kooxda RSF Suudaan waxay wajahaysaa dagaal galay sanadkii saddexaad kaas oo u dhaxeeya ciidamada qalabka sida ee uu hogaamiyo madaxa golaha sare ee kumeel gaarka General Abdulfatah al-Burhan iyo waliba ciidamada gurmadka degdega ee uu hogaamiyo ku-xigeenkiisii hore Maxamed Hamdan Dagalo oo loo yaqaan Ahmeti dagaalkaasi oo sababay dhimashada 10,000 oo qof iyo xaalado bini'aadantinimo oo baahsan waaga markan waxaynu eegaynaa dhanka Afghanistan halkaasi oo dawladda Taliban ay soo saartay war culus oo ay ku beeninayso in ciidamo shisheeye ay ku sugan yihiin waddankaasi haddaba warbaahinta waddanka Afghanistan ayaa waxa ay soo xigatay wasiirka arrimaha dibadda Amir Khan Muttaqi wuxuuna si cad u beeniyay in wax ciidamo shisheeye ay ku sugan yihiin saldhigga military ee Bagram ee ku yaal waqooyiga magaalada caasimadda ee Kabul waxaana uu xoojiyay in Afghanistan si buuxda ay uga soo horjeedo joogitaanka ciidamo military ah oo shisheeye ama wax kasta oo iskaashi military ah oo lala yeesho dalal dibadda ah Muttaqi ayaa hadalkan ka sheegay khudbad uu ka jeediyay magaalada Kabul xilli ay socotay xafladda qalinjibinta safiirad da'yar oo ka soo baxay akademiyadda diblomaasiyadda ee hoos timaada wasaaradda arrimaha dibadda sida ay daabacday shabakadda wararka Imaaraati oo laga leeyahay dalka Afghanistan wasiirka arrimaha dibadda ee Afghanistan wuxuu yiri Mareykanku waa inuu fahmaa xaqiiqada dhabta ah ee Afghanistan dadkeeda iyo nidaamka imaaradda islaamiga kaas oo si buuxda u diidan joogitaanka wax ciidan shisheeye ah isla markaasna aan wax xiriir ah oo dhanka ciidanka la yeelan doonin cidna wasiir Muttaqi wuxuu si gaar ah u beeniyay eedeymo uu horay u jeediyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ku saabsanaa in ciidamo Shiinaysa ay joogaan saldhigga Bagram wuxuu yiri dalkeenna weligiis ogolaan maayo wax joogitaan oo ciidamo shisheeye ah oo ku sugnaada dhulkeenna wuxuu intaasi raaciyay isagoo toos ula hadlaya Trump waa in aad si feejigan u dhageysataa xaqiiqadan qalbi furnaanna ku dhageysataa Muttaqi wuxuu sheegay in Afghanistan ay doonayso in ay horumariso xiriir waxa dhisaya oo dhinaca siyaasadda dhaqaalaha iyo diblomaasiyadda ay la yeelato beesha caalamka laakiin gabi ahaanba ay ka soo horjeedo wax xiriir ciidan ama iskaashi military ah in ay la yeelato wadamada dibadda ah ugu dambeyntii wasiirka arrimaha dibadda ee Afghanistan wuxuu yiri dawladda Afghanistan waxay u xaqiijinaysaa beesha caalamka inaysan jirin wax ciidamo shisheeye ah oo ku sugan dhulka Afghanistan wahagaag nimanka marka waxay leeyihiin ama Mareykan aho ama Shiinays aho ama Ruush aho dhulkan waa dhulka Afghanistaniyiinta wax ciidan oo ajnabi ah oo la ogol yahay ma jirto xitaa waxa la yiraahdo iskaashi military baa la sameeyaa iyo iskaashi difaaci wax isma yeelayaan waxay ku leeyihiin waddankeena annaga dhowr iyo 20 sano dagaal ugu jirnay barqacdan la wareegnay amnigiisii ciidan shisheeye marka hadduu wax tarayo wuxuu wax u tari lahaa madaxweynayaashii hore ilaa Xamid Karzai iyo madaxweynihii ugu dambeeyay xaaladdu marka waxay leeyihiin wax walba hala sameeyo shisheeye kasta hala keeno dhowr iyo 20 wadan baa tagtay oo NATO ah waxba ka socomayaan biirayaan marka hadda Shiinays iyo Ruushia xagga iska dhig nimanka marka warkoodu caadiya sida arrimaha dadkan ka faalooda ay sheegayaan waa hagaag macluumaadkaas intaas aynu ku dhaafno waxaan u gudbaynaa warbixin la yaab leh oo ku saabsan ciidanka Israa'iil oo bilaabay in ay sameeyaan arrin cajiib ah oo la yaaban yahay oo ah mar kaliya Gaza aan ka tago haddaba arrintaas maxay tahay waan idin faahfaahin doonaa sheekadaasi xuutiga oo ayaguna war culus soo saaray iyo wararkii ugu dambeeyay Gaza intaan u gudbin macluumaadkaas aynu ku hakanno qadar xayis waa tahay sheekada Israa'iil iyo Mareykanka Gaza way noo soo socotaa laakiin markan waxaan ku hormaraynaa xuutiga wararkii ugu dambeeyay waxaad kula socoteen Israa'iil oo duqeysay Xudayda iyo xuutiga oo saacado gudahood diyaaradaha daroonka ku weeraray garoonka diyaaradaha ee Ben Gurion waa garoonka ugu weyn Israa'iil garoonka Roman David waa garoon kamid ah garoomada ciidamada cirku ay adeegsadaan
iyo sidoo kale dekadda umarashrash inkastoo la xiray dekadaasi oo israa'iiliinta ugu yeeraan ilaad sidoo kale waxay sheegeen xuutigu inay weerareen xarun xasaasi oo ku taala talaabiib iyo magaalada ashdod haddaba mas-uul sare oo xuutiya ayaa digniin hor la jeedinaya aynu eegna warbixintaasi oo ay qortay warbaahinta iiraan hagaag mas-uulkan ka tirsan xogaga xuutiyiinta oo lagu magacaabo maxamed al-bukhati ayaa waxa uu sheegay in digniin culus ay u direen israa'iil islamarkaasna ciidankooda ay sii wadi doonaan kordhinta weerarada aargoosiga haddii israa'iil ay sii xoojiso duqeymaha ka dhanka ah dalka yeman wuxuu yidhi haddii israa'iil dagaal dheeraad ah ay nagu soo qaado waxay wajihi doontaa mawjado cusub oo weeraro aargoosi ah al-bukhati wuxuu si adag u muujiyey in duqeymaha israa'iil aysan wiqi doonin howlgallada ciidanka xuutiyiinta isagoo yidhi weeraradan waxay noqon doonaan kuwa dhiirigelin aynu ka sii qaadno gaar ahaan taageerada aan u hayno dadka falastiiniyiinta marayka Gaza hadalkan ayaa waxa uu yimid xilli diyaaradaha dagaalka Israa'iil isniintii shalay ahayd weerar ay ku qaadeen dekada Xudayda ee ku taal galbeedka dalka Yemen tan iyo markii dagaalka Gaza uu qarxay bishii Oktoobar 2023 xuutiyiintu waxay fuliyeen weerar badan oo military oo ay kaga jawaabayeen weerarada Israa'iil ku hayso marayka Gaza Yemen waxa ay ballan qaaday buu yiri in ay sii wadi doonto howlgallada taageerada ee Gaza ilaa laga joojinayo gardarrada Israa'iil iyo go'doominta naxariis darrada ah ee ay ku hayso marayka Gaza dagaalkan ba'an ee Israa'iil ku hayso Gaza ayaa waxa uu bilowday kadib markii xogaga iska cabinta Falastiiniyiintu ay ku qaadeen Israa'iil weerarka lama filaanka ee la magac baxay duufaanta al-Aqsa kaas oo ay kaga jawaabayeen 10 sano oo Israa'iil ay ku haysay tacadiye iyo burburin xarumaha Falastiiniyiinta iyo guryaha dadka Falastiiniyiinta isla markaasna xadgudub ay ku sameynaysay goobaha barakaysan sida masjidka al-Aqsa sida ay Falastiiniyiintu sheegeen haddaba dagaalkan ka socda marayka Gaza ayaa waxa la leeyahay imika wuxuu gelayaa weji hor leh kadib markii militariga Israa'iil shalay ay bilaabeen howlgallo culus oo ay ka wadaan Daara Balax waa bartamaha marayka Gaza maxaa ugu dambeeyay marka xoogga iska cabinta Falastiiniyiinta ayaa waxay ka warbixiyeen howlgalladii ugu dambeeyay ka dhanka ah militariga Israa'iil haddaba telefishinka Al Jazeera ayaa waxa uu baahinayaa in habeennimadii xalay mid ka mid ah ururada iska cabinta Falastiiniyiintu ay qaadeen weerar culus oo ay ku beegsadeen ciidamo Israa'iiliyiin ah guutooyinka al-Qassam garabka hubaysan ee ururka Xamaas ayaa waxay sheegeen taangi nooca markaafaha oo ciidanka Israa'iil ay leeyihiin in ay ku burburiyeen deegaan kale yiraahdo Zahir oo ku yaal koonfurta Daara Balax waa bartamaha marayka Gaza laakiin sheekada ugu dhibka badan uguna yaabka badan oo Israa'iiliyiintu ay leeyihiin waxay tahay warbaahinta Israa'iil ilaa iyo xalay ilaa isaaka ay ka faaloonayso telefishinada dhan sheekadaas baa qabsatay sidoo kale waxa laga hadlayaa dagaalka imika laga bilaabay Daara Balax bartamaha marayka Gaza haddaba aynu eegno warbixintan oo aan isku soo ururinay warbaahinta Israa'iil aan ka soo ururinay qubaro iyo dhaqaaqayaal arrimaha ciidanka iyo arrimaha bulshada Israa'iiliinta ayaa waxay aaminsan yihiin in dagaalkan lagu hayo marayka Gaza uu yahay mid aan hadaf lahayn xilli ay taagan yihiin su'aalo culus oo ku saabsan awoodda ciidanka Israa'iil ay u leeyihiin in meesha ay ka saaraan dhaqaaqa Xamaas iyagoo si cad ugu baaqay xukuumadda Israa'iil in ay gaarto xal dhanka siyaasadda ah taas oo ay sheegeen in ay tahay tan ugu habboon Eyal Barkowitsi oo ah wariye arrimaha siyaasadda uga faalooda telefishinka kanaal 13 ee Israa'iil laga leeyahay ayaa wuxuu yiri maxaan Gaza ka qabanaynaa waxaan 2 sano ku dhawadnay buu yiri burburinta godad dilka dagaalyahano iyo duminta dhismayaal laakiin waxaan ognahay ugu dambeyn inayna ka takhalusi karin maskaxda ka dambaysa arrimahan mana dumin doono yiri godadka ugu dambeeya ee nacasnimada aan joojino wuxuu u sheegay in taliyaha guud ee ciidanka Israa'iil Eyal Zamir laftigiisa uu qiray in aysan garanayn waxa ay ka hayaan marayka Gaza Barkowitz wuxuu ugu baaqay Israa'iil dagaalka inay joojiso wuxuu yiri waa intaas howlgal kale ma jiro sheekadu markay si socotaa dhacdo la yaab leh marka laga hadlaya oo askarta Israa'iil ay u sameeyaan si dagaalka ay uga baxaan haddaba nin lagu magacaabo Shaul Mizrahi oo jiraan ah laakiin aan ku noqday mudaharajada ka dhanka xukuumadda Netanyahu ayaa wuxuu sheegay hadalkan la yaab kale wuxuu yiri isagoo la hadlay warbaahinta Israa'iil
ma maqasheen in askarta gacmahooda iyo lugahooda ay xabad ku dhufanayaan oo ay jibinayaan si ay uga baxaan dagaalka ka socda marayka Gaza wuxuu yiri waxay la dhacayaan askartu daal waxay la kulmayaan dil bilaa sabab ah haddii arrintaasi ay sii socotana halis ayay gelinayaan naftooda oo qaar baa isdilay hadda waxa bilaabatay buu yiri askarta inay gacanta toogtaan ama lugta iska toogtaan si dhaawacooda lagu qaado gudaha Israa'iil Mirzaay wuxuu intaas ku daray in heerka siyaasadeed ee xukuumadda uusan ahayn mid gaari kara intii la rabay isagoo ku eedeeyay madaxda Israa'iil inay go'doon ka yihiin xaqiiqda oo aysan dan ka lahayn askarta wuxuu hadalkan ka sheegay dood ka dhacday telefishinka ay 24 wuxuuna yiri waxaan ku jirnaa dhiiqada Gaza maalin walba dhimasho ayaa askarta la kulmayaan waa la dilayaa halka xisbiyada xukuumaddu ay samaysanayaan ama ay geliyaan heshiisyo isbahaysi si ay awoodda u sii haystaan wuxuu si kulul u weeraray wasiirada xukuumadda isagoo sheegay waa kuwa ka fog xaqiiqda oo aan dan iyo naxariis ka lahayn askarteena xukuumadda Netanyahu ayaa waxay wajahaysaa cadaadis gudaha oo kaasi ku aadan in Israa'iil dagaalka ay soo afjarto dhinaca kale dhanka Mareykanku ayna eegne afayeen u hadashay aqalka cad ayaa waxay sheegtay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu doonayo in la joojiyo dagaalka ka socda marayka Gaza isla markaasna arrimahan wada xaajoodka iyo xabad joojinta looga hadlayo siideynta maxaabiista in markaasi guul laga gaaro waxay sheegtay haweeneydaasi in Trump uu rumaysan yahay in dagaalku uu aad u dheeraaday isla markaasna maalmihii ugu dambeeyay uu noqday mid dhiig badan oo ku daatay madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale ku baaqay in gargaar bini'aadantinimo oo degdeg ah la gaarsiiyo dadka reer Gaza hadalkan ayaa wuxuu ibaanaya xilli cadaadis caalami ah uu kordhayo oo Israa'iil ka dhana kaas oo la xiriira in la joojiyo dagaalkan oo lagu macneeyay mid xasuuqa arrintu markaa kaasi maraysa ciidanka Israa'iil ninkan Israa'iiliga oo xalay telefishinka ay 24 ka hadlay wuxuu leeyahay askarigii si dagaalka uga baxo gacantu iska tooganaya ama lugta gacanta jabaysa ama lugta jabaysa wuxuu leeyahay bas way dagaal ma gali karaan dhaacoy martu waa la qaadaya marka waa sheekadii ugu yaabka badnayd ilaa iyo saaka ilaa iyo xalay wax kale oo laga hadlaya ma jirto inkastoo dhacdo weyn ay dhacday habeennimadii xalay oo xitaa ciidan Israa'iiliina lagu damiyay guri ay ku jireen dagaalo culusna ay socdaan haddana sheekadan waxay noqotay sheeko la yaab leh banaanbaxyadii sheekadan baa ka daranba askarta qaarkood markii la yiraahdo waxa la ku cilayaa Gaza way isdilayaan 10 maalmood 4 askari waa isdishay sida ay leedahay warbaahinta Israa'iil xaalku markuu adeegaya waa tahay inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii xulashada wararka waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan barnaamijyadan iyo macluumaadkan aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo